hablaha reer saaxil ee sharafta iyo karaamada leh ee caawa xafladan wanaagsan quruxda badan loo qabtay dhalinyarada aqoon-yahanka bahda saxaafadda salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waa xaflad aad farxad weyn u leh waxa weeye waa xaflad taariikhiya weeye gobolka saaxil intaan halkaa fadhiyey dareenka hablihii hore hadla la yidhi aad buu runtii ii ruxay hablo aan weligood mikrofoon iman inay mikrofoonka hor yimaadaan oo ay doonaan inay dadka la hadlaan waxa keenay waa garanaysaan hadalladii wanaagsanaa ee halka ka baxay habluhu sheegeen waxay lahaayeen kuwa qiiro badan waxaa jira waynu joognaa waynu aragnaa shacbigu aad iyo aad buu u dulqaad badan yahay waa shacbi qadh adag waxaa dalka ka dhacaya waxay ku doorsadeen inay nabad ku beddelaan laakiin kooxda waxaan u sheegayaa kooxdu arrintu waa ka khaldan tahay shacbigu sidaa ahaan maayo hadday arrintu sii xumaato shacbigu wuu kacaya fartaad diiddantihiin in laydinku beddelo maalinba ruwaayad yar baa keenaysaan lacagtii qaranku uu ku qaban lahaa doorashadana weli waa haysataan 4 milyan weli ma idin bixin waxaannu ognahay waxa guntiga idinku jira inaad wax xille inaad keentaan waxaan hubaa inaad koox tihiin shacbigu kii idin doortay ee milgahaa idin siiyey ee sharaftaa idin siiyey ee halkaa idin geeyey inuu yahay maanta khalad baa iska dhaadhiciseen haddaad istidhaahdaan dadkan way jilceen khalad baa iska dhaadhiciseen haddaad tidhaahdaan rru iyo mid soo basaasa iyo mid u cagajugleeya iyo mid xabsiga ku rida ayaa dadkan jilcinaya waa xisaab khaldan xisaabta noocaasa waxaan qabaa inaad ka baxdaan waayo qaranka waynu wada jecelnahay dadku hadduu kaco ma soo noqonayo 3 xisbina waxba kama qaban karaan cid kaloo wax ka qaban kartaana ma jirto waa biyaha daadka mar hadday dhaqaaqaan cid qaban kartaa ma jirto ilaa ay helaan halkay ku nagaan lahaayeen waxaan idiin sheegaynaa dab baa ku ciyaaraysaan dabna laguma ciyaaro dadkan dhulkoodii baa iibiseen hantidoodii baa iibiseen qarankoodii baa iibiseen eedhiin meegoodii baa iibiseen waxay lahaayeen baa iibiseen waxba uma idin hambayn sidaasay idinku daawanayaan idinku daba taagan yihiin biliis waddanku khatar buu ku jiraa doorasho qabta si idinkuna aa u badbaaddaan dalkuna u badbaado haddaad diiddaan soo maaha dadkani joogi maayaan waa taariikhda caddaysay waa la hubaa caburuni shaqayn mayso maxamed sidiiq dhamme yoonis axmed yoonis 2 mas-uul oo sare oo xidhan 2 bilood oo ku xidhan maxaa u hadasheen weli taariikhda somalilan kamay dhicin madax xisbi oo iska xidhan oo waxay u xidhantahay aan la oqoon oo jees ku xidhan waxaa hablaha soo kiciyey waa dareenkaa xanuunka badan weeye madaxdaa 2 bilood xidhan weeye oo waxay ku xidhan tahay aan caaw la garanayn weeye waxaannu leennahay ka noqda kooxdaasi lacag bay soo samaysteen 5 kun la yidhaahdo waxay ku qaateen dollarkii dalka yaallay inflationka waxba kama qaban karno yaa yidhi waxba kama qaban karno qoladii hore joogtay waa ogeydeen lacagta may soo samaysan jirin way ilaalin jireen adeeg badanoo dhaqaalaha jiray iyaga ayaa guunti iska giijinta dhaqaalaha samayn jiray haddii aan maanta giijin iyo la samayn dhaqaaloo la adkayn miyay lacagtu joogaysaa maalin walba haddaad diyaarad ku keento konteynar lacaga oo dollarkii suuqa yaalle aad adigu qaadato dollarku miyuu taagnaanayaa askarigan aad gaajada ku dilaysa muwaadinka ah ee mujaahidka ah ee dalka u taagan inuu ilaaliyo dalka miyuu ilaalin doonaa miyay sidan sii ahaan doontaa arrintu lacagta in yar baa la qaataa waana la ogaaday dadkii hore xaaraanta qaatay meelna may tegin marka waxaannu kula talin lahayn dalka doorasho geliya welibana fartaa laydinku beddelaya taa waa la hubaa waayo calaamadaha guusha waxaa ka mid ah reer saaxil baa ka mid ah reer saaxil caawa waa arkaysaan haddaad berbere tagtana waad dareemaysaa waxaan ku soo gebagabeynayaa aad iyo aad baa u mahadsan tihiin xisbigana ku soo dhowaada garabkii haweenku halkan uu ka hadlay lama kala laha guul insha allah somalilan aad iyo aad buu